musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani abibakar cabdiraxmaan good oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid ee gobolka awdal qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan ee laga soo doortay gobolka awdal oo maanta shir jaraa'id si wada jir ugu qabtay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxaa musharax madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ambaasador maxamed cali cabdi uu ka hadlay soona dhaweeyay munaasabada 18 May ee fooda nagu soo haysa waxaana uu sidoo kale uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu ka taagan yahay muranku waxaana uu yiri daliya dibadba 18 May oo maalin laba maalmood ka harsan tahay maanta iyo maalin kale ka harsan tahay in Ilaahay inooga dhigo maalin aan taariikh ahaan loo xusine waxtar weyn ummadda u yeelatay dalka mustaqbalkana lagu aayo oo loo aayo oo wax tarta laga soo bilaabo December sanadkii 2021 sanadkii hore waxaad moodaa dalka inay muran siyaasadeed oo khilaaf weyn dhaliyay inuu soo galay taasina uma fiicna dimuqraadiyadda adduunyadu inagu taqaanay ee ahayd inaan iyagoo Soomaaliland dalan la aqoonsan inuu haddana maanta meel weyn kaga jiro oo la yaqaano madaxweynuhuna khudbadiisii sanadeedka ee shaqada u jeediyay uu ku daray sida doorashooyinku ay wadanka halkay gaarsiiyeen iyo magaca iyo sumcadda ay u sameeyeen khaasatan waliba tii u dambeysay ee ahayd doorashada saaran waxaan rajaynaynaa murankaasi inaanu noqonin mid badhelaysa oo dimuqraadiyadda Soomaaliland kaana qaaday dib u dhigay inaanu noqonin madaxweynaha kursiga fadhiya adaa ka mas'uula siyaasadda dalka dhaqaalaha wax walba waxaan rajaynaynaa ummaddu ka sugaysaa murankaasi inuuna meel dheer tagin ee aad soo afjarto aday wax walba gacantaada ku jiraan intii Ilaahay ka sokaysa kursiga markii aad fadhiisatay 17 November waa amaana kursiga madaxweyne waa amaano 5 sanadood baa lagu doortay 5 sanadood ee maalin lagu ma dooranin imigana way dhowdahay waxaan rajaynaynaa inaanu noqonin kursigaasi kursi aad dhibaato ka timaada inta ku hadhay maalintii doorashadana 13 November ee soo socota in doorashadana la qabto oo si nabadgeliya doorasho xoolo xalaala in la qabto ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan rajaynaynaa waan ku boorinayaa dimuqraadiyadda kaana qaaday dalka in la wada ilaaliyo oo aanay lahayn mucaarid iyo muxaafid laakiin ay tahay waxayna saaran oo mustaqbalka dalka u fiican taasina ay tahay in la wada ilaaliyo oo aan cidna lagu eegin qofka kursi fadhiyo doona hada madaxweynaha cid kasta ahaade iyo ku aan fadhiyinba kuraasidaas waa la wada leeyahay wadada ka dhaxaysa nimo maalin fadhiisan doona madaxweynuhu fadhiyin baa in weligii hadii loo daayo xataa waqti baan u deynaya cimri marka ayaan la isku xaqxaganin madaxweynaha waxaan ka codsananaa aan ka rajaynaynaa inuu khilaafkaasina soo gabagayo sababtoo ah doorashooyinka waxay leeyihiin wax u asala waxa kamid ah guddiga doorashooyinka waa guddi madax bannaan markii hore gudoomiye hore iyaga doortay kana imigana iyaga doortay anagu xisaabta mucaaradka hadaan nahay kii horena waan taageersanay waan ayeedsanayn kan dacwada doortayna waan ayeedsanahay waxaan rajaynaynaa in khilaaf aanu ka imanin guddida loo xil saaray la sheegay madaxweynuhu doorayna waxaan rajaynaynaa in madaxweynuhu si ka duwan hadduu xal khilaaf jiro xataa si ka duwan in loo xaliyaan rajaynaynaa geesta kale isagoo hadalkiisa sii wata musharax madaxweyne ku-xigeen ambaasador maxamed cali cabdi ayaa waxa uu sheegay in maalinta beriya ay iman doonaan magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer faysal cali waraabe waxaana ugu baaqay shacbiga gobolka awdal inay si miisaan u soo dhaweeyaan mas'uuliyiintaasi diyaarna ay u ahaadaan waxaana uu yiri waxaan rajaynaynaa oo imanaya beritoole haddii la yidhaaho musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga ucid ayaa gobolka imanaya awdal waxaan dadweynaha ku nool gobolka awdal waxaan rajaynaynaa inay u diyaar garoobaan oo ay soo dhaweeyaan waxa meesha taalla waxa laga hadlaa nabadgelyada haddii imanayaan oo dadka soo dhaweynayaan waxa weeyaan macnaheedu ma aha nabadgelyada inayna dadka iyo taageerayaasha axsaabta mucaaridku xil baa saaran xil baa ina wada saaran ka dawladda saaran ka cid walba saaran ka kulmiye saaran ayaa cid walba saaran nabadgelyada cidnaba lama baryayo taageerayaashu
ayagoo nabadgelyada iyo ka shaqaynaya oo aan u baahnayn inay bilayska iyo ciidamada u xil saaran inay waxba aan uga baahnayn iyagoo nabadgelyo ilaalinaya waxaan rajaynaynaa inay soo dhaweyntaasi u diyaar garoobaan si fiicanna u soo dhaweeyaan si nabadgelyo u soo dhaweeyaan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa soo dhaweyntoodaas inay noqoto si fiican oo nabadgelyo ah ayaan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa ilaahay dalkeenna guul iyo nimco ilaahay maanta Soomaaliland waa dalalka adduunka ugu fiican waxay ugu fiican tahay waxa weeye nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxa inagu waajiba lagama fikiro shalay maxaa yimiday maxaa la qabtay maanta way socotaa bari ay imanaysa dhalinyarada wax walba iyo dadka ku nool mustaqbal bay leeyihiin rabaan aan ka fikirno bari toole Askari Cabdishaaf Faarax Sikariya Saxane telefishinka caalamiga Horyal TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal